السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا إذن كم بميل والبعض يقدر هانيسان هل كانوا جماعة أوفيشال وبرت صاحبي يكون مذوبين وبرت لماني وذا كل مسي وبرتها أدهيلو قلبي قاعد كويسين إسلام مركز السيدة ساعد له ذا يجي اللي هي ووقتك صاحبك كان أو هود سوق الجر وسيدة داود يال مركز الكل معنا ونكسن ميل والبقى جماعة أوفيشال إذن كسو جاريو وهكذا داود يال وحنفي ليه مركي اللي أركو اللي دربة ترى فكرنا الأركان دربة للي هي ومالين رياكشن واسيدا داوديال ورياكشن هذا داوديال بركله برتي دا ku cusubtahay subscribe leh like leh share leh saaxiibada la sii wadaag gambalaalka korona waa ku muhiim si maalba muuqaaladeeda oo maalin walba ay ku soo gaaraan muuqaalada maalba aan soo gudbi daawad si ay ku soo gaaraan gambalaalka korofro oo ya laga hormar waagaag daawadayaal maanta marka waxaan doonayaa in aan soo gudbiyo in aan soo gudbiyo daawadeel waxaan doonayaa maanta maahan maalintii fanka dul istaagi jiray isla markaas reactionada laga bixi jiray maahan daawadeel maanta waxaan doonayaa in aan reaction aan ka bixiyo isla markaas aan dul istaago gabar tiri engineer Yariso duqa caasimada ayaan jeclahay ugu waa gabar tiri duqa caasimada ayaan jeclahay haddaba daawadayaal muuqaalka waxaan filayaa intaan soo gudbin ka hor in aad la yaaban tahay maskaxdaada ka weyn tahay aad fikirayso aad runtii aad leedahay no macquul ma sidee gabar duqa caasimada ku jeclaan kartaa marka daawade waa laga yaabaa su'aalahaas inaad isweydiin saasaatay waxa cajiib ah oo runtii muhiim ah in la isweydiiyo laga fakaro wax badan la qiimeeyo jecel wuu jiraa waa sax wuu jiraa jecel wuu jiraa marka jecelkaas uu jiro gabadhuna qalbigeeda ay ka shay way banaankay soo dhigtay waxay sheegtay in duqa jeceshahay duqa caasimada inay jeceshahay marka Yariso maadaama la jeclaaday gabadhii jeclaatay baraha bulshada ayay muuqaal soo dhigtay gabadhii ayaa baraha bulshada muuqaal sida u soo dhigtay iyadoo si dareen leh u sheegaysa in duqa caasimada jeceshahay jacaylkuna runtii maadaama uu baaxad leeyahay qalbiga laga dareemo isla markaasna aragtida qofka koowaad lagu soo jiito isla markaasna ereyada waxyaabaha kala duwan activity la dabcan loo baahan yahay haddana jacaylku waa wax jira lagu joogo isla markaasna dhammaanba dadka caalamka dhan ay ku wada dhasheen isku diidaya wame marka jecelka sida ayaa gabar waxay tiri daawadayaal engineerka ayaan jecelahay engineerka runtii waa qof saas ah you can imagine sidii sensiga leh wuxuu sheegay gabadhu runtii marka baraha iyo muuqaalka soo dhigtay markaan daawaday oo sida uu eegay waxay soo baxday in sheekadu cajiib tahay isla markaasna gabadhu waxay ka hadlaysay tahay waxyaabo xasaasi ah marka muuqaalkii daawada gabadhii aan daawaday ayaan doonay in la wadaago isla markaasna reaction aan ka bixino maadaama gabadhu sida ila muuqatay dabcan aniga qaabi ila muuqatay adinkana laga yaabo inay qaab ila muuqato marka gabadhu ayaan rabay inaan dul istaagno isla markaasna sheekada ay baraha ay soo dhigtay isla markaasna ay dadka la wadaagtay ayaan rabaa inaan mar kale adinka aan la wadaago Jamaica Official waa bar maalinlaha isla markaasna daawadaal wixii markaas taagan daily issue ama markaas waxa taagan in ay idin soo gudbiso ayaa ka go'an wixii markaas taagan daawadayaal ugu maalin walba wax walba oo taagan ayaad bartaan ugu maad doontaa waa sidaan ku balanay waagaag daawadayaal waxaan doonayaa marka gabadhii jaceylka la qiirootay dareen leh u hadashay ayaan doonayaa inaan idin la wadaago isla markaasna adinkuna markaad dheehataan waxaad aragtaan iyo sida aniga aan dabcan reactionka ayada aan ugu bixiyo qaybta balanta ku soo qor waagaag bal muuqaalka daawadayaal bal marka hore muuqaalka aadin ciyaaro yar ayaan dabcan aan jeclaaday engineer Yariso dabcan waqtiga iyo waa xagga alle kama soo dhamaa inaa u sheegto balse haddaan awoodo inaa fariinteeda aan gudbiyo si u gudbiyo anigu waxaan ahay gabar caashiq baan u qabto engineer Yariso anigu waxaan ahay gabar caashiq baan u qabta engineer Yariso ayay leedahay gabadhu duqa caasimada ayay gabadhan caashiq baan u qabtaa
marka daawadayaal sida hordhaca gabadhu waxaad moodaa in ay ka go-an tahay in ay arrintani gudbiso maadaama ay sida ay sheegtoba jaceyl ba-an uu ka hayo ninkaas odayga ah iyaduna way ka go-an tahay gabaray nabad jaceylka aan u qabay waqtigaas waan awoodibaa inaad u sheegto injineer waqtiga iskuul macallin buu ii ahaa aniga waan awoodibaa marka balse hadda waagii iskuulkii ayay daawadayaal ay u qabtay jaceylkaasi isla markaasna way awoodi weysay gabadhu waagaas way awoodi weysay in ay soo gudbiso iminka ayay doonaysaa marka in ay soo gudbiso isla markaasna daawadayaal ay bulshada la wadaagto aniga la wadaagto adinka daawanaysiin Jamaica Official la wadaagto gabadhu way ka go-an tahay nasiid dareen leh sense leh activity leh rabtaa inay arintaas u soo gudbiso adinkana inay la wadaagto daawadayaal way qiiroonaysaa oo gabadhu way ilmeynaysaa maadaama marka ay qiiroonayso ilmeynayso dareen oo hayo bal iyadu qaabkii u muuqato waa qaab markaas laga dareemi karayo bal mar kale aan sii ogaana balse hadda ayaa waxaa hadal xataa ma gara inaa u sheegto waayo jaceylkiisa saa'id ii haayo marka waan awood la xataa inaa hadal aan afkii ayaa jooqda gaba ayaa leedahay gabadhu maadaama sida sheegtay awoodi kari leedahay in ay sheegato ilaa iminkana weli uma muuqato inay sii sheegan karayso gabadhu marka waa ka daacad miyaan oran karaynaa mise waa qaab jileena waan kala qaadaynaa midda koowaad daawadayaal waan kala qaadaynaa midda koowaad gabadhu sida iminku muuqato waa qaab runtii ay doonayso inay ku gudbisay sida hordhaca idinkugu sheegaba marka qofka biniaadanka dabcan qalbigiisa laguma jiro laakiin sida emotion ahaan iyada uu muuqato ay u gudbinayso ilin in ay runtii ilmeynaysa ayaad u moodaa maadaama marka ay uu macallin u ahaa dalka Britain Bristol ay wada joogeen halkaasna ay markay joogeen u sheegan kari weysay dabcan iminka ayay doonaysaa markay inay gudbiso runtii waa ilmeynaysaa marka waan awood la xataa inaa hadal aan hadlo marka hadda waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo jaceylka saa'idkaana u qabo injineer Yariso anigu waa ku jecelahay saa'ida weli ku jecela nafsadeeda xataa waa ku hori injineer Yariso waa ku jecelahay yeelada waa duqii caasimada waa duqii xilkaayay waa duqii awad naqaanay waa ninkii miisaanka la waa ninkii madaxda waa ninkii siyaasiga waka fariintaas ayaa loo dirayaa oo way ku adkeysanaysaa waa ku celcelinaysaa anigu waan ku jecelahay anigu waa ka Yariso nafsadeeda xataa waa ku hori karaa Yariso waa awoodi waa marka wallaahi billaahi waa awoodi waa waqtiga isla joogna barisolis balse hadda waxaan codsanayaa dabcan maadaama waqtiga uu qofka dadka u kala heliyo maadaama waqtiga dadka uu kala geeyo maadaama waqtiga uu aad u balaaran yahay maadaama waqti badan la isku heli kareynin maadaama saxmadda iyo kala gooshka caalamku aad u badan yahay qof walba dantiisa meel ay dhigayso gabadhu siday sheegayso marka waagaas way awoodi kari weysay waagaas runtii awoodeeda jismi ahaaneed awoodeeda qalbi ahaaneed awoodeeda karti ahaaneed awoodeeda dareen ahaaneed inay markaas ku gudbiso daawaday way awoodi kari weysay dalka Britain Bristol ayay joogtay markaas maadaama isaga uu macallin u ahaa inay hor istaagto si dareen leh sense leh emotion leh inay u sheegto way awoodi kari weysay iminka ayay doonaysaa marka in ay gudbiso fariintii oo laba jibaaran 3 laba jibaaran 7 laba jibaaran 100 laba jibaaran isla markaasna si miisaaman ku socoto oo sense leh ayay doonaysaa inay si u socotoba qalbigiisa ugu dhacdo maadaama ay oonayso isla markaas inay ka turjumayso wixii markaas hayo oo dareenka ah maadaama jaceylku uu yahay wax awood leh dareen leh baaxad leh dulqaad leh cizi leh tixgelin leh lagu nool yahay lagu joogo ayay doonaysaa wixii markaas ka tagay dhaafay inayna dib ugu noqon ay iminka doonayso daawade mar kale soo nooleyso
mar kale in ay soo nooleyso ayay doonaysaa maadaama bartu ay tahay bar wax lagu gudbiyo fariimahana qaado qof walbana sida uu gacanta taleefanka ugu hayo ayay doonaysaa in wixii ay gudbisay tagay isla markaasna iyagoo la habeeyey in ay barta si u socoto isaga u gashay doonayso ayay marka gabadhu ilmeysay maadaama ugu daawade qofka markuu hadlayo oo caadi u hadlayo wax walba oo jiro ilin inay si ciyaar lagu maado laga yaabo laakiin markii qofka ilin ka imaanayso waa last stage macnaha wax ka dambeys ma jiraan marka iyadu way ilmeysay marka waan kala qaadaynaa marka hore way noo sheekayso dalka Britain macallin oo ahaa Bristol ay joogtay dan sense okay by the way waxaasna ka soo gudb laakiin hadda waxaan ka qaadanaynaa qaybta ooyintaan ka qaadanaynaa ka soo qaba inaan qaybta hore rumayso weyno sheekada dhan ka gudub forget all laakiin hadda inta waxaan ka qaadanaynaa daawade qaybta ilmadan ka qaadanaynaa maadaama wix uu jecel uu yahay birthdays or wix dhanba laga soo tagay laakiin hadda in this time ay waxay rabtaa in ay gudbiso waxay ku gudbinaysaa marka si sense leh way ilmeysay marka maadaama ilmeysay aan ku sii socono daawada si degdeg aad iigu soo jawaab celiso waxaan ahay gabar caashaq ku qabto waxaan ahay naf adigu ku waalanayso dartaada ayaan aniga halkan magaalada Muqdisho aan ugu imaaday tuumos kaliya wadanka jooga 2 bil sanadku cusub aniga wadanka imaaday waxaan kaaga imaado dalka Ingiriiska waa halahaas inta soo kiiloomitir ina soo jar maxaa igu qasbay wax kale ma ahan anigu danteeda uma imaanin kaliya waxa uu imaaday nafsad ayaa halka iiga taalo qofaan jeclaa halka iiga joogo madaxiisa wallahi markaan TV ka arkaa hadalkaaga iyo istee markaan ku arka daawada waxaan filayaa marka in ay runtii boontiga hadda aan dul taagan oo yahay good bond waxay ka timid dalka Britain 2 bil ay joogtaa xamar waxay u maada dartiis waxaan rabtaa in ay marka waxayna sii sheegtay in aynan dan iyada caasimada ka oolin isla markaasna kaliya isaga u maaday 2 bil ay joogtaa maadaama 2 bil ay joogto meel dheerna ka timid isaga doonaysa inay aragto ninkii doonaysa waa duqi caasimada isla markaasna maadaama ay kulmaana waxay doonaysaa fariintii bartaan ku soo dhacday in automatically isaga ugu dhacdo ha ka jawaabo ama uu ka jawaabi laakiin iyada ay ka go'an tahay ayay sii cadeynaysaa nood wallahi markaan TV ka arkaa hadalkaaga iyo istee markaan ku arka aniga dhanba waxa damcadallada inaan ka soo baxo dan ma awoodo aragtidaada in aragtida kaliya shaashada aan ka arkaa intaas waa ku qanacsanahay yaa heer waxaan gaar xataa mobilkayga ina shaashada sawirkaaga aan saarto aniga intaas maxaa iigu qasbay wax kale ma ahan heer waxaan marayaa xitaa sawirkiisa aniga aan shaashadeeda mobilkayga shaashadu ii saaran yahay sawirkiisa engineer Yariso intaas wax kale ma ah waa jecel aan adigu ku qabo engineer Yariso anigu way jiraan balse anigu wax inta rag dunida joogta adiga ka ishaartay waan ku bariyaa waa iga codsi itixgili engineer Yariso itixgili daawadayaal waxaan filayaa marka in aad u fahanteen gabadhu dabcan jaceelku wuxuu ka bilowday indhaha si dareenna qalbigu aadaa dan all baari u galaa kadib qofka soo rabo marka asaga ha u isticmaalo marka gabadhu maadaama isaga jeceshahay inuu gudbi kareynin waxay tiri awoodii caadiga heedan kari waayay si marka isaga maadaama jeceshahay kana dheeriyay mas'uul xil hayan uu yahay waqtigiina kala dheeriyay inay la kulantana ay adag tahay marka waxay leedahay markaan shaashada aan ka arko shaashada adiga oo duqi caasimada marka qudbeynaysid ama hawlo kale caadi ah ku jirto laakiin si kala shaashada aan kaaga arko waxaan ku qanacay leedahay in aan halkaas aan ka daawado waan ku farxay leedahay in aan halkaas aan ka daawado ugu daawado marka qofku uu ku yiraahdo marka meeshaas oo kaliya aan ka heli karay markaan ka helo waan ku qancaa markay tiri waa meesha ugu dambeeyso waxay taagan tahay waa ka haddana waxay sii daba dhigtay taleefankayga gacanka aniga aan wato waxa ii saaran sawirkaaga oo taleefanku daawad wuxuu ka turjumaa rabitaanka qofka
qof waxaa jira aabihiis sawirkiisa u saaran yahay qof waxaa jira hooyihiis u saaran yahay qofna isaga ayaa shakhsiyan taleefankiisa sawirkiisa saarta qofna familkiisa qofka uu isleeyahay that's good qofkaas waa qof wacan waa qof oo la saari karo ayuu saartaa marka taleefanka noocaasa iyada ay shakhsiyan u lahayd ayay odayga saaratay marka waxay ka turjumaysaa in uu ka joogo miisaan culus in uu ka joogo qof bil-aadana meesha lagu qiimeyn karayay inuu ka joogo ayay caddaynaysaa marka gabadhan daawade waxaan filaynaa inay tahay qof aad dabcan ninkay sheegayso aad u jeceshahay qof ay ka go-an tahay rabitaan qof ay ka go-an tahay dareen qof ay ka go-an tahay bil-aadnimo qof ay ka go-an tahay naxariis qof ay ka go-an tahay in qofkaas kale qalbigeeda u rarto qof ay ka go-an tahay mustaqbalka finally inay qofkaas ila degto saas ayaan u fahnay marka waana gabadhii waxaan dhihi karaynaa waa the first female oo baraha bulshada daawade kusoo bandhigto aragtideeda waxaan dhihi karaynaa waa qoftii ugu horeysay ee dumar ah si karti iyo adadegnimo ku jirtana usoo bandhigi karaysa wax iyada ka dhex guuxaya bartu aragteen daawada markii sidaa loo galo oo baraha wax lagu qorayo meesha oo boostiga waxaa laleeyahay was your own mind oo ka micno ah maxaa kaa dhex guuxaya markii meesha oo wax lagu qoro boostiga was your mind ay ku qoran marka gabadhu waxa ka dhex guuxaya ayay daawada soo gudbisay marka anagu mala yaabi karayno maadaama Soomaali aan nahay oo wali dunida hormarti aan gaarin haddana waxaad moodaa inaan yara dambeeno jecel waxba laga aqoon inaan yara dambeeno qofka markuu barta wax soo dhigo oo si fikrado kala duwan oo qaldan wax loogu bixin karay laakiin gabadhan waxaan dhihi karaynaa she's the best waa qof waxaan dhihi karaynaa ku wacan in ay aragtideeda oo qayaxan aragtideeda oo يعني واضح إني سوق بيس. مركب حدي كرنا جبجبدي يريسو قادو أركتداس يريسو قادو جبداس ويكوجعشة يريسو. ما دام حل مسؤولية هاي سود إن جبداس أسود ويدونتيد أيان كعرف فدينا وحنا كفر حسن هاي رنتي تان أدان هاي تيم كجميع أوفيشال إن برتانا فرين أن كيوجد بين إسلام مركزنا أنا مثلا هاي إن أجعل كجبداس هذا كرو قادو دونتيد إسلام مركز بيزان كعلاج كدريم مثلا كدي جدونتيد إسلام مركزنا aad si qalbi furna aad gabadhaas u soo dhaweey doonto maadaama ay qof tahay adiga ku jecel isla markaasna si laab furnaana u soo bandhigtay waxa ka dhex guuxaya waan aaminsanahay in aad dareenkaas gabadhaasi bilaadnimo aad soo gudbi doontid isla markaasna aad dhigi doontid she is the one oo sida ayada ku xulatana aad u xul doontay ayaan aaminsanahay mar kale Jamaica Official daawad haddaad ku cusub tahay subscribe like share saaxiibada la sii wadaaga qaybta corona gambalka hilmaamin waa ku muhiim si mar walba muuqaalka maalinlaha qofka ugu horeeya ee daawad aad noqotid ku maasanid waqtigaaga nasiis nabadgelyo